السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا وحو بارتو يهي درسي هراء أنو كسو قادنيني أنو كسو دغاني balance sheet iyo wuxuu sheego iyo waxyaalaha uu warbixintooda account-nadu soo gudbiyo. Marka balance sheet waxaa jira balance sheet equation wax la yiraahdo ama accounting equation hadaad u maqashay. Marka balance sheet equation waxay ka dhigan tahay balance sheet equation waxay ka dhigan tahay waa assets-ku waxay la mid yihiin liability-ga oo lagu daray equity-ga. Okay. Waa accounting equation hadaad maqasho waa intaa waan. Accounting equation waxay ka dhigan tahay assets-ku oo soo sheegnay waxa uu yahay waxay la mid tahay liability-ga iyo equity-ga oo la isku daray. Okay. Bal example ahaan si aan u fahanno Cabdillaahi ninka la yiraahdo wuxuu soo iibsaday computer soo iibsaday wuxuuna ku soo iibsaday $400. Si uu computerka lacagtiisa iskaga bixiyo wuxuu isticmaalay $200 oo cash ahaan ku haystay $200 ee kale soo hadhayna uu soo amaahday. So imika ahaan asset-ka uu haystaa ninkaasi waxa weeyaan waa $400 oo dollar buu ku joogaa computerka oo asset-kiya. Marka $200 liability oo soo amaahday iyo $200 equity oo la isku daray ya asset-kii oo computerkii ahaa iyo la mid noqotay. Marka sidoo bay noqonaysaa asset-kiisu waa $400 waxayna la mid tahay liability oo $200 soo amaahday ahayd oo lagu daray $200 ee cash ahaan ku sii haystay. Marka accounting equation ama balance sheet equation hada maqsho waa intaa waa assets-ku waxay la mid tahay liability-ga iyo equity oo la isku daray ay la mid tahay waa intaas. Haye looma eegayo inay equity-ga iyo liability-gu iyagoo la isku daray oo midba qayb waday inay tahay ee waxa dhici karaysa marmar in liability-gu 400 keento oo marka equity-gu 0 ahaado laakiin waxa kaliya ee muhiimadu ay tahay waxa weeyaan waa inuu balance jiro sida ka dareemaysid yani waa inay jirto labada daraf waa asset-ka darafka kalena waxa weeyaan waa liability iyo equity isla socdo. Marka waa inay labadaas siman yihiin aham xaaja waxa muhiimadu ugu weyn ay tahay waa inay siman yihiin looma eegayo waxaan 400 liability wala ahayd mise equity bay ahayd mise midna 200 baa mise 200 baa ahayd laakiin waa inay aham xaaja inuu asset-ku markuu dhinac ahaan iyo liability-ga iyo equity oo dhinac inay siman yihiin. Okay. bal ka soo qaad hadii ninka Cabdillaahi oo computerka soo iibsaday $400 ku joogay si uu computerka iskaga bixiyo haduu isticmaalay $400 oo cash ku haystay ka waran oo marka asset-kiisu imika still waa $400 laakiin liability wax soo amaahday ma jirin ee $400 ba cash ahaan ku haystay still balance-keenu uu joogay naga oo $400 waa dhinac asset-kii labadii dhinac kalena oo liability-ga iyo equity-ga $400 baa ka imaatay. Okay. marka still balance-keenu waa sax. ka soo qaad hadii ninka computerka $400 uu soo siistay hadii uu isticmaalay si uu computerka isuga bixiyo haduu isticmaalay $400 uu soo amaahday ka waran uu deyn ahaa haduu soo qaatay asset-kiisu waxa weeyaan waa $400 ku jooga liability-giisu waa $400 equity marka ma jiro oo waxa cash wuxuu lacag haystay ma jirto laakiin labadoodana la isku daray liability-ga oo $400 ba keentay iyo equity-ga 0 markii la isku daro iyagoo isku darafa markii labadoodu ay dhinac yihiin iyo asset-kii oo dhinaca $400 still inagu balance-geedu uu jooga oo muhiimadeenu waa inuu balance uu joogo mar walba asset-ku dhinaca iyo labada kale dhinac. Okay. balance sheet equation dad naqsho inta marka inta isla fahnaa rajeynaya. Okay. waxaynu niri waa inagii soo sheegnay oo warbixinada dhaqaale waa inagii soo niri warbixinadu way iska farabadan yihiin laakiin labaynu ka hadlaynaa waynu niri marka balance sheet baynu sida kaga soo hadalay waxay iyadu tahay waxay warbixintooda soo gudbiso iyo sida ay u shaqeyso balance sheet equation inta marka si fiican isla soo fahmo warbixinteena kale labaad aynu ka hadlayno waxa la yiraahdaa income statement ama profit and loss baa laga yaabaa ama inaad maqasho. Okay. profit income statement marka maxay ka dhigan tahay maxay sheegtaa waxay ku tusinaysaa natiijada ka soo baxday shaqo la qabtay muddo dhexdeed oo natiijadaas laba mid bay noqonaysaa inay natiijadani khasaare aad gaadhay tahay iyo inay faa'iido aad gaadhay tahay labadaas mid bay ku tusinaysaa. Okay. marka maxay warbixintooda soo gudbisaa laba account bay warbixintooda sheegtaa oo revenues-ka wixii madartay income ee soo galay iyo expenses wixii kharashaad ee ka baxay labadaas iyo warbixintooda ku tusinaysaa. Okay. marka revenue-gu maxay ka dhigan yihiin revenues-ku waxa weeyaan waa kor u kaca ku yimid dhaqaalaha kor u kacaas oo ka yimid
إما إيبين إيبسي أجاب تادي يا productive واحد سو ساري سي إيبسي إنه كيمد إنه كيمد سيرفيسات بحساب كاستمر كعكسيس expense marka maxay yahay soo expense ku waa hoos u dhac ku yimid dhaqaalahaagi iyo xoolahaagi hoos u dhacaas oo ka yimid wixii kharashaad aynu isticmaalay darteed si aynu faa'iidadaas u dhalino kharashaadkii aynu isticmaalay darteed buu hoos u dhacan ka yimid okay ka waran hadii revenue wixii faa'iidadayda ahaa wixii income-kayga hadii laga jaro wixii kharashaad ee gal hadii laga jaro waxa soo baxay wax la yiraahdo net income oo faa'iidadii khaaliska ahayd ee ku imatay ومركي وحي فائدة قاعدة يا وحلا جرى يا خساره كوجاري سياد فائدة نقول لسه خساره كوجاري مركي نت إنكم بكون صباحي نت إنكم كمركي وحويان وكركع كيميت حولها هاي كركع عاص أو كيميت وحولها هاي زيادة نوكا إمتى شقة أي قلة شركة دار ينشادات كي أي سمايسي أو وحي من شو يبص شو وحي وردم أو شقة دي هاي قلة وكيميت كركع عاص مركي أوكي بالمركي إكسبنس كان aynu miisaal ku ogaano biyo expense-ka waxa kamid ah wixii kharashaadkii kaaga baxay iclaamaad haday jiraan bank service haday jiraan oo bankigu intuu service ku qabtay lacagtii uu ku jaaj gareeyay wixii kaaga baxay haday jiraan delivery expenses wixii agaab lagu keenay kharash lagu dul saartay haday jiro wax istihlaaga oo isticmaashay kharashaadkii kaaga baxay haday jiraan taamiin aad bixisid ama wixii taamiinka kaaga baxay haddii jirto waxyaalo lacaga oo kharashaad lagu dul saartay haddii jirto waxaday jirto kiro aad ku jirto oo shirkadaadu kiro ay bixiso haddii jiro waxaas oo kharashaad kugu adiga ku soo gaaray haddii jiro waxyaalaha ka jaba iyo wixii la mid ah wixii lagu hagaajiyay lacagihii lagu hagaajiyay siyaanadii kharashaadkii kaaga baxay waxa kamid ah kharashaadkii kaaga baxay mushaharka dadka ku shaqeeya waxa kamid ah haddii jiraan canshuuraad iyo ruqsooyin ay dawladdu wixii ka qaaday kharashaadkii kaaga baxay waxaa kamid ah telecommunication wixii kaaga baxay sida telefoonadka internetka wixii la mid ah kaaga baxay waxaa kamid ah kharashaadka haddii jiraan shaqaalahaaga wax training oo UTC iyo wixii la mid ah kharashka kaaga baxay supplieska kharashaadka kaaga baxay utilities wixii kaaga baxay sida korontadii iyo biyihii iyo wixii la mid ah iyo ka ugu dambeeyo aha cost of goods sold oo aha waa account isaguna muhiim ah oo laga yaabo marmarna inaad aragto isagoo expense lagu xisaabinaynin account gaarkiisa u taagan la xisaabiyo oo aha wuxuu account-kan wuxuu yahay isagu waa kharashaadkii agaabta bakhaarka ku taala agaabta soo iibsatay bakhaarka ku taala kharashaadka waxay kugu joogto qiimaha ay kugu joogto waa account-ka ku sheegayo oo isna waa ku muhiim ah marka kuwaas waa example-lada expenses ka wixii kharashaad waxa soo dhamaan kamid ka waran revenue maxaa kamid ah isaga revenues-ka waa miisaaladiisa maxaa kamid ah waxa kamid ah hadii aad adigu khadamaad bixiso wixii income kaaga yimid waxa kale kamid ah hadii aad school ama jaamacad ama wixii aad leedahay lacagta aad ka qaaday ee kaaga imata hadii aad xirfado gaar ah leedahay xirfadaha aad samayso lacagti ka soo gasha hadii ay jirto agaab aad iibinayso agaabta faa'iido ka soo gasha haddii jirto discount lagu sameeyo oo qof aad wax ka iibsatay discount lagu sameeyo faa'iido ka soo gasha haddii adu shirkadaada ay wax ay kirayso guriga iyo xillamada ay kirayso kirada lacagta ka soo gasha haddii ay jiraan adigu dadka macaamiishaada lacag aad u saarato lacagta ku soo gasho waxaas oo dhan waxa la yiraahdaa revenue baa la yiraahdaa okay marka waxaan u miisaal ku siinayaa revenue expense ka liability waxaan oo dhan waxaan ku siinayaa waxaynu markaynu software ka dhiganayno waxa la chart of accounting xagga aynu ku arki doonaa chart of accounting wuxuu ka dhigan yahay waxaan oo dhan xisaab walba oo account walba oo imika aynu meesha ku sheegnay waa hadduu faa'iido account-kan yahay iyo hadduu khasaare yahayba waa in meeshiisii saxda ah la geliyo oo imika kharash walba meeshii uu kaaga baxay account-kii loogu talagalay ee saxda ahaa ee kuwa imika soo sheegayna waa inaad gelisid hadduu waxaan dhaqaale ku soo galay yahay waa inaad u samaysid akoonadan imika aan sheegayno oo sax ah oo lacagtani meesha ay ka soo gashay akoonkii saxda ahaa inaad u samaysid marka haddaad miisaaladan si fiican u fahanto waxa ku dhigaranaya chart of account sax ah inaad samaysato oo kharash walba oo ka baxay meeshii saxda ah kaaga baxay aad u samaysid faa'iido walba soo gashay meeshii saxda ahayd akoonkii saxda ahaa ay ku sheegi lahaa ay ka soo gashay oo u samaysid baa ay faa'iidadeedu tahay okay markaan saa isula fahanno labada warbixinood balance sheet iyo income statement markaan labada si fiican isula fahanno waxay yihiin waxaan u maleynaa wax la yiraahdo double entry bookkeeping
oo iyaduna la yiraahdo debit and credit waxay ka dhigan tahay lacag walba kharash walba oo meel ka baxay meel kale u galaa oo inta hadduu kharash meel ka baxo lacag hadday meel ka baxdo meel kale gashaa hadday meel soo gasho meel kale ka soo baxday waa inta marka bal si aynu isula fahanno debit and credit si aynu isula fahanno waxaynu soo qaadanaynaa wax la yiraahdo T account waxa lagu bixiyay sida T u sameeyay sida aragtiin marka sidan buu shaqeeyay T account-gu xagga sare waxa yaala account-ka magaciisa yaala debit iyo credit baa kala jiro oo debit iyo credit waxay ka kala dhigan yihiin debit hadda waa wixii left side wixii bidixda debit baa loo oranayaa creditna waa right side waa wixii midigta waxa loo oranayaa credit baa loo oranayaa okay bal marka inta sida noogu soo qaad oo account-ka xagga sare iyo debit iyo credit oo lamida left side iyo right side lamida markaynu inta isla fahanay inuu T account-ka ilaa imika inta hadaynu isla socono waxaynu soo qaadanaynaa shanta account ee ugu muhiimsan waa shanta account ee main-ka ah waa kuwa ra'iisiga waxa kale oo dhan shanta number hoos imanaya marka shantaas maxay kala yihiin kuwa horeeya expenses ka ku xiga waa liability ka ku xiga waa owner's equity ka ku xigana waa asset ka ku xigana waa income waa revenue marka shantan account unbu haddaad maqasho waxaan oo dhan accounting-guba shantan unbu ku wareegaya oo wixii aan shantan ahayn shantan unbu hoos imanaya oo mid shanta ka mid unbu hoos tagaya marka shantan waxaa muhiima inaad fahanto sida loo record gareynayo oo debit iyo credit shantan sida u kala qaataan waxay muhiim kugu tahay imika marka aanu insha Allah cashiraanteena soo socda marka aanu journal inter wax la yiraahdo yaan ku arki doonaa software-ka dhexdiisa wuxuu ku siinayaa debit iyo credit buu ku siinayaa marka ma wax walba oo aad u record gareynaysid waa inaad kala garatid account-kan horta wuxuu yahay account-kan waa maxay ma income ba ma expense ba wuxuu yahay baad horta sheegaysaa marka wuxuu yahay sheegto waa inaad haddana ogaato la dhinacu galaya ma credit ku galaya ma debit ku galaya waa inaad kala ogaato haddii uu maad aragtay waxaan income yahay ama expenses yahay ama liability yahay dhinaca mid walba uu galayo waa inaad si fiican u ogaato marka waa intan imika darsigan aan imika intan ka hadlaynaa waa muhiim inaad ogaato sababtoo tahay isaga la'aantii haddaadan intan kale ogaanin journal entry aan ka sheekeynayno waxba kuma qori karaysid sababtoo debit iyo credit haddaadan kale ogaanin siday u kala galayaan expenses iyo income iyo shantan account si u kala galayaan haddaadan ogaanin kugu cuslaanaysaa xisaabtaaduna khaladaad badan baa ku iman okay bal marka ila soo sida marka ay u imanayaan okay T account-keena marka noo soo qaado horta T account-keeni oo left side-kii oo lamida debit-kii iyo right side-kii oo credit-kii lamida account-ka ugu horeeya marka asset aan soo qaadan asset waxa ku soo hoosgelaya wax walba oo asset-ka ahaa yaa ku soo hoosgelaya sida cash-kii inventory-gii wixii oo dhan waa asset baa la isku oranaya wixii asset aan soo tilmaanay tilmaantii baad ku soconaysaa wixii asset aan soo tilmaanay oo dhan haddii uu kor u kac ku yimaado oo asset-keeni hadduu ziyaado asset-keeni wuu beeray hadduu beero waxaad gelinaysaa xagga debit-kaad gelinaysaa hadduu asset-keenu beero waxaad gelinaysaa xagga debit hadduu asset-keenu hoos u dhac ku yimaado oo asset-keeni nuqsaan waxaad gelinaysaa xagga credit-kaad gelinaysaa oo right side-kaad gelinaysaa waxaa la mid ah asset-ka waxaa la mid ah expenses bay isku xeer yihiin waa isku qaanuun oo wixii expense-kaagu kharashaadkaagu haddii ziyaadaan xagga debit-ka geli haddii ay hoos u dhac ku yimaadana xagga credit-ka geli okay marka labadaas sida isla fahamna saddexda kale waa labadan cagsigood oo labadani markay dhinac isu raacayaan saddexdii kalena dhinac bay isu raacayaan marka balan soo qaadana midka la yiraahdo income-kaagi hadduu hoos u dhac ku yimaado waxaad gelinaysaa xagga debit-kaad gelinaysaa hadduu kor u kac ku yimaado income-kaagi kordhana waxaad gelinaysaa xagga credit-ka geli okay waxaad soo qaadataa owner's equity-ga soo qaado hadduu nuqsaamo oo hoos u dhac ku yimaado waxaad gelisaa xagga debit-ka geli hadduu kor u kac ku yimaadana xagga credit-ka geli okay ka ugu dambeeyo oo ah liability-ga haddii hoos u dhac ku yimaado nuqsaamaan waxaad gelisaa xagga debit-ka geli hadduu kor u kac ku yimaadana credit-ka geli marka intaa siday tahay isuga xafid okay bal haddaynu example ahaan soo qaadano si aynu u fahno aynu nidhaahno qalin la company shirkadda la yiraahdo baa waxay soo iibsatay equipment ku jooga $400 ku jooga cash ku soo iibsatay marka sida aynu sheegnay debit iyo credit waxa ka dhigan tahay baynu nidhi haddii ay lacag meel ka baxdo account haday ka baxdo
akoon kale laazim galaysaa haddii akoon ka soo baxdana mid kale bay galaysaa marka laazim marka laba akoon mar walba meesha waa inay joogaan oo debit iyo credit midna waa inay debit u noqoto midna credit u noqoto marka imika shirkadii imika marka equipment bay soo iibsatay cash bay ku soo iibsatay laba akoon baa jooga marka equipment geeni oo waxa soo iibsanay waa akoonka kalena wuxuu yahay lacagtan 400 ee cash naga baxday iyadana waa akoon marka si uu kala geliyaa marka tii akoonkaaga soo qaado labada akoon waa labada waa cash iyo equipment marka waxaad ogaataa labaduba waa asset imika labadaba waa asset marka laba akoon oo asset ka dhexdiisii uu imika shaqadan ka dhexdhacday ka dhiganta marka akoonkan asset ka dhinac waxa ku yimid hoos u dhac oo cash keeni $400 baa naga baxday oo hoos u dhac baa cash keeni ku yimid xageen gelinayna marka credit kan gelinayna 400 ee naga baxday credit ka xagga credit kan gelinayna equipment-ga isagu ziyaaday waa asset isaguba laakiin uu kordhay oo agaabta equipment-ga way biiraan marka isaga waxaad gelinaysaa wixii xagga biira waxaad gelinaysaa debit ka gelinaysaa waxa muhiimka ah ee ogaatid inuu yahay waxa weeyaan debit iyo credit mar walba waa inay yihiin equal waa inay yihiin oo debit kiina waa 4 xaggan kale credit kiina waa 4 waa muhiim okay haddaan misaal ahaan kala soo qaadana ka hor qalile company-yadu waxay soo iibsatay imikana 400 inventory ay soo iibsatay imika laakiin on account haddaad aragtid yani on account waxay ka dhigan tahay intaad account ka dhex socoto haddaad on account maqasho waxa weeyaan waa amaah tii hore forecast waa Soomaa imika tan waa amaah bay ku soo iibsatay inventory waxay ku soo iibsatay oo $400 ku jooga amaah bay ku soo qaatay okay imika marka labada account imika marka saameeyay waa labada account wax ka dhex dhacay accounts payable darsigii hore aynu ku soo dhiganaynay oo hal deymaha inaga laynagu leeyahay waa account waa dhinac oo liability geeni okay akoonka kale wax saameeyay waa inventory-geenu isna waa asset marka sidan bay noqonaysaa labada akoon waa labada waa inventory-geenu asset arrin baa ku dhacday oo arrinta ku dhacday waxay tahay uu kordhay oo agaab baan keenay inventory maqsinkeeni bakharkeeni waxba keenay oo agaab baan keenay okay accounts payable kan isagoo liability isagoo uu kordhay oo deyn baan lagu yeeshay oo deyn uu kordhay marka imika laba ziyaada dhacday labadiiba wax nuqsaan ma jir laakiin laba ziyaada dhacday okay marka markuu inventory-geenu ziyaado waa asset waxani markuu asset-kaagu kordho debit kaad gelinaysaa marka inventory-geenu imika uu kordhay waana asset xagga debit kan gelinayna accounts payable kan isagoo liability uu kordhay isna xagga credit kan gelinayna marka inaad inta ula socoto waa muhiim xoog ku anfacaysaa yani marka aad transaction sameynaysid korgareynaysid haddii aad kuwan kala garanayn debit iyo credit si u kala qaataan waxa dhacaysa in xisaabtaada khalad ku yimaado oo dhinaca credit-ka dad debit-kiisa soo wixii dhan usoo maraya okay marka maxaa marka dhacay debit-keeni iyo credit-keeni labadaba waa min 400 way simeeyeen marka balance-gaas waa muhiim mar walba inuu joogo marka inaad inta isla fahanay baan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.